maanta waxaan ka hadli doonaa dhaqannada kala duwan ee caalamka ay kula dhaqmaan hooyooyinka ubadkooda. haddaba alxamdulilah, hooyooyinkeena Soomaaliyeed aad waxay noogu garaaci jireen markaynu waxbarashadeenna gaar ahaan quraanka aynu ka habsaano. taas ayay nagala dagaalami jireen. haddaba caalamkana aan bal eegna carruurtooda waxyaabaha ay kala dagaalamaan inayna ku kicinna ay jecel yihiin. haddaynu ugu horeysino waddanka UK, ilmaha yar looma ogolo khiyaamada. USA, ilmaha yar waa ka mamnuuc waxyaabaha daraagiska ay hooyadu kala dagaalanto. sidoo kale Brazil, Guinea iyo waxa ciyaaro isna waa ka mamnuuc. sidoo kale India, iyadana waxa ka mamnuuca ilmaha yar inuu hurdo badan iska seexdo. sidoo kalena Italiana waxa ka mamnuuca inuu ilmaha yar been sheego. Japan waxa ilmaha yar lagala dagaalamaa inuu sigaarka iyo waxyaabaha cabo. haddaba sidoo kale Faransiiska, ilmaha yar waxa lagala dagaalamaa inuu jirkiisa daldalooliyo amba uu ku sameeyo daldaloolo. Isbaanishkana waxa lagala dagaalamaa ay hooyadu aad ugala dagaalantaa ilmaheega yar inuu qayb ka noqdo gaangiska. sidoo kale German, ilmaha yar waxa lagala dagaalamaa inuu waxatooyo barto. South Korea waxa lagala dagaalamaa inuu mobile isticmaalo, uu mobile qaato. China-hana inuu isagoo teenage aan la guursan karin, oo macnaha teenage wixii ka weyn baa loo galiyay. sidoo kale Canada oo uga cajiibsan, ilmaha yar habeenkii looma ogolo inuu socod badan sameeyo. waayo Philippines, iyada waxa la ogol yahay looma ogola ilmaha yar inuu mooto iyo waxyaabahaas uu kaxkaxeeyo amba uu raaco. Malaysia, ciyaarta jazz iyo waxaas waa ka mamnuuc. ilmaha yar inuu boon amba saxi amba waxyaabaha uu sameeyana waa ka mamnuuc. micnaha ilmaha yar oo teenage ba ilmaha yar ilaa uu ku jiraa. marka ilmaha marka teenage gaaraan waa waxbay saxi iska sameeyaan, marka waa ka mamnuuc. dhanka iyo Australia boonku waxyaabaha xun waa ka mamnuuc iyadana. Pakistan waxa ka mamnuuc in ilmaha yar xidho amba inanta xidhato diraysyada nooca dhaqanka xun leh. Russia waa cayda ayaa ka mamnuuca. ilmuhu inuu cay iyo waxyaabaha uu barto ayaa ka mamnuuca. Indonesia, inuu ilmuhu lazy noqdo ama crazy amba wax caajislow waa ka mamnuuc ilmaha yar, oo hooyadu micnaha way la dagaalantaa. sidoo kale inuu ilmuhu Mexico uu dheerti noqdo, iyadoo gaangiska ugu badan joogaan haddana ilmaha yar inuu dheerti noqdo laga ilaaliya. Sweden, inuu ilmaha yar sariirta hurdada waa ka mamnuuc iyaduna yaa buumti. Bangladesh, wiibonka ka mamnuuca. hub inuu ilmaha yar qaato aad ba ay hooyadu ugula dagaalantaa. haddaba Taiwan waxa aad loogala dagaalaa ilmaha yar inuu dagaal iyo waxyaabaha gelin. Australia, ilmaha yar waxay hooyadii kala dagaalantaa inuu waqtiga lumin. Sacuudi Arabia, inuu ilmaha yar qaylada badan uu joojiyo ay kala dagaalantaa. Iran, inuu ilmaha yar tattoo iyo waxyaabaha isku sawiro ayaa lagala dagaalamaa. inuu Imaaraadkana waxa lagala dagaalamaa inuu ilmaha yar meelaha baartiyada iyo xalfadaha waaweyn ay ka jiraan inuu tagaa lagala dagaalamaa. sidoo kalena Algeria, in ilmuhu qaylo bato canaan uu hadal kulul ka soo haro iyadana waa lagala dagaalamaa. sidoo kalena in ilmuhu all time u dhageysto heeso waa lagala dagaalamaa dalka Norway. maanta inahaasi barnaamijkeena kaga bixi doonaa iyo dhaqannada kala duwan ee caalamka. wabillahi tawfiiq, wassalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuh.